gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali ayaa shalay dhaariyay 6 xubnood oo guddiga doorashooyinka Somaliland ah iyadoo uu weli taagan yahay murankii u dhaxeeyay xisbiyada iyo xukuumadda. Haddaba wariyaheena Qadar Maxamed Cakula ayaa wareystay Cabdirashiid Maxamuud Riiraac iyo Xasan Yuusuf Ducaale oo labaduba ka mid ahaa xubnihii la dhaariyay shalay. Waxaana ku horeeya Cabdirashiid. Marka dee lagu daro mas'uuliyadda intii aanu magacawnayn ama aanu baarlamaanka soo dhaafnay culayska saakana fuulay dee nama fuushanayn xaqiiqdii waxa weeyaan dee qof dhaartay maanta uunbaa culays iyo mas-uuliyad runtii dee noo kow tahay marka dee ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nagu sugo oo nala garab qabto oo aanan dhaartaa kuwii ka soo baxa ee waajibkooda gutaan noqon. xisbiyada weli murankoodii muxaafidka iyo mucaaridka waa taagan yahay waa ciddii aad u garsoori lahaydeen inkastoo yaad xil la wareegayna laakiin dee commission la dhaariya miyayna idinka caqabad idinku ahayn qolyii kubadda ay u dhigi lahaydeen siirigoo wadeen inayna garoonkiisa wada gelayn? wallaahi way tahay xaqiiqdii way tahay waxaanu rajaynaynaa xisbiyadana ka rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa in asafgarad iyo dee wanaag yimaado in maaragtay dee la wada shaqeeyo oo dhaarta iyo cadaaladda aanu ballan qaadnay nalagu aamino dad waaweyn baanu nahay in markaa dee way tahay oo caqabad waxa weeyaan commissionku dee inuu qaranka u shaqeeyo weeye inuu dadka u shaqeeyo in doorashooyinkii inoo socdaan haddii dee caqabadi hortaagantay ma shaqayn karo marka rajo weyn baanu qabnaa in dee sidii Somaliland ahaan jirtay laysu yimaado oo laysfahmo oo shaqadii qaranka cid waliba intii qaybtay lahayd ay dee waajibkii gudato ka soo baxdo. warbaahinta ugu badan waxay ka hadlaysaa Cabdirashiid Riiraac baa ku jira commissionka ma ogolin mucaaridka ole ma ku damaqdaa hadalhaynta iyo durka lagu duray sideed isku aragtaa? wallaahi dee waxaan dareemaa runtii waa dhabo haayo waad ma garanaysaa waxaadan dee dembi aadan isku ogeyn ama aadan gelin marka aad maqasho dad badan oo wadwada dad badan oo aan runtii dee iba aqoonin shakhsiyan oo cay kuu soo diraya waa qasab weeye qofka bini'aadankii dee filim buu iska leeya waa laga yaabaa sometimes laakiin waxaan u arkaa dee xil qaran weeye xilka qaranun baana le ma garanaysaa cayda iyo maagista iyo marka aniga maaha shakhsiyan anigu sidaan qaba waxa weeye waa xilkaa qaranna dee ciddii igu maagaysaa xaq bay u leedahay inay igu maagto sababta waxa weeye wax naga dhexeeyey oo ummadda ka dhexeeyey baan ma garanaysaa dee lay diray oan gacanta ku hayaa marka waxaan isleeyahay waxba u dhimi mayso dee ma garanaysaa xilkaa qaran iyo hawshaan hayo waxba u dhimi mayso maagista iyo dadku dee xilkooday maaganayaan markaa soo ururiyo. Xasan Yuusuf Ducaale wuxuu ka mid ahaa xubnihii 6 ahaa ee commissionka Somaliland la dhaariyay bal xasan dareenkaaga ka waran? dareenkaygu waxa weeye mas-uuliyad aad u culus oo runtii markii kitaabka gacanta lay saaray maanta wax maalmihii hore waxay iska ahayd ciyaar iyo hawl iyo magaranaysaa shaqaan diyaardoon laakiin markii kitaabka gacanta lay saaray maanta runtii waxaan dareemay xagga minalahayda culays weyn oo iila muuqday inaan maanta laga bilaabo noqonayo qof garsoore u ah ummadda intaa laga reer Somaliland xisbiyada qaranka xubnaha baarlamaanka ee la dooran doono golaha deegaanka ee la dooran doono marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad culus shicibka iyo ummadda reer Somalilandna waxaan ka codsanayaa intay hambalyada iska day inay noo soo duceeyaan. kaasi waxa uu ahaa Xasan Yuusuf Ducaale oo ka mid ahaa guddi 6 xubnood ah oo doorashooyinka Somaliland oo shalay la dhaariyay. waxaa ka horeeyay Cabdirashiid Maxamuud Riiraac dhammaantoodba waxay u waramayeen wariyaheena Qadar Maxamed.